Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada dhammaantiin waa injineer cabdilaahi axmed muuse halkan waxaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala casharyo aada u gaabansan laakiin faa'iidadiisu aad iyo aad baa u badan tahay run ahaantii haddii aad tahay qof ku shaqeeya programkan AutoCAD-ka ama aada wax u sawira ama shirkad u shaqeeya ama arday haw yani haddaad aada wax u sawirto isku meel aad ku sawirto badanaa waxaa dhacdaa in faylashaadu ay farabataan sidoo kale aad dadna koobiyeyso halkan aad mid ku samayso yani sidoo kale aad meel kasta qaar ku samayso halkan qaar aad ku samayso halkan ku samaysato everywhere aad ku samaysato saa daraadeed taasi waxa ay kugu kooskaraysaa in faylkaaga uu noqdo fayl runtii aada u culus ama MB-giisu badan yahay haddaad tiraahdo dirso aad dhib ka mudsato oo dhib ka mutaysato saa daraadeed maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qaabka loo yareeyo faylka AutoCAD-ka adiga oon waxba xumeynin ama wax iska bedelayn waxaan sameynaynaa imika faylkeena aan isticmaalayno oo intaas oo drawing ay ku jiraan ayaan eegaynaa propertieskiisa inta uu leeyahay marka waxaad sameynaysaa halkaa aad ku qorantay baad tegaysaa deetana drawing baad tegaysaa unit deetana waxaad tegaysaa drawing properties ayaad click siinaysaa drawing propertieski markaad tegaysaa markaa wuxuu kusoo saarayaa noocii iyo locationkii iyo sizekiisi markaa sizekiini waxa weeyaan 7.9 MB almost 8 MB waa 8 MB faylkan wuxuu inoogu save garaysan yahay meel halkan haddaynu si toos u tagno waa blank waa kan waa 8 MB ama haddaad right click tiraahdo dabeetana properties aad tiraahdo waa la mid iyaduna waa 7.96 saa daraadeed haddaba waxaan doonayaa inaan faylkan yareeyo aan aada u reduce gareeyo wax yaro kooban kasoo qaado si aan WhatsApp iyo meel kastaba ugu dirin karo waxaad sameynaysaa oo tegaysaa halkay ku qoran tahay insert baad tegaysaa deetana create blocks baad oranaysaa deetana write a block baad oranaysaa write a block marka aad tiraahdid sano kale kuu soo baxdo halkan ay ku qoran tahay select object baad ku dhufanaysaa click baad siinaysaa select object dabeetana waad yaraynaysaa dhammaan faylashii meesha ku yaalo dhan soo highlight garanaysaa dhammaantood soo kala highlight garanaysaa deetana right click baad right click marka aad tiraahdo okay baad markaa siinaysaa okay ayaad siinaysaa okay marka wuxuu ku leeyahay ma magacii hore aad doonaysaa inaad ku save garaysato mise waxaad doonaysaa magaca inaad ka bedesho waxaan doonayaa inaan magaca comparison si aan ugu sameyno magacii hore aan ka bedelaya tusaale ahaan oo kale halkan dhigayay halkan buu yaalay new block waxaan leeyahay plan 2 deetana save aan leeyahay okay waa markaas waa uu dhameeyay imika processkii uu dhameeyay marka waan eegi karaa way imika waxaan tegayaa halkan ku save gareeyay baan tegayaa saan ogaano intuu ka dhigay waa 1400 ayuu ka dhigay markii horena 8000 buu ahaa almost 7000 buu hawada ka saaray saa daraadeed haddaad kan cabirkaaga eegto waa imisa gebigiisa 1 MB buu ka dhigay marka faylkaagii oo si kasta u weynaa 1 MB buu ka dhigayaa kan kale ee halkan ku jira haddaynu eegno file tagno drawing tagno utilities drawing properties way kan waa keenii hore isaga weli soomaynaa kicin aan soo kiciyo isaga waa kan plan 2 weeyaan isagu plan 2 okay wii wada waka plan 2 waka xagga sare ka soo dhigay imika adeegaysaa marka kaasi waa keenii hore kan imika aan joognaana waa kii dambe drawing properties waka waa 1 MB marka taasi waxay kaa caawinaysaa inaad WhatsApp ku diri karto meel kasta ku diri karto casharkan waxaynu ku baranay sida loo yareeyo fayl AutoCAD assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Audio Jungle.